مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle mar labaad ayaan waxa weeyaan xalqadeennii labaad baan ku soo noqonnay oo aan kaga warramanay sahayda loo baahan yahay qofku adduunyadan inta uu joogo inuu sii qaato si au ilaahay subxaanahu wa tacaala ula kulmo ilaahay isagoo raalli ka ah. waxaan soo gaarnay in maaragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisu qudsi ilaahay uu ka wariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen walba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala samaa u dunya usoo dhaadhaco oo ilaaha uu idhaahdo ayaa wax iiga baahan oon weysiiyaa ayaad dembi dhaafi weydiisanaya oon u dembi dhaafaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u maaragtay baaqayo khalqigiisa. waxaan soo tilmaamnay markaa waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ou xadiis markaasi uu tilmaamay oon soo sheegnay dadka barhkiya habeenkii inay kacaan, dadka barhkiina waxa weeyaan inayna habeenkii ayna sara kicin oyna ka faa'iideysan ilaahay subxaanahu wa tacaala baaqiisa. marka xadiiskan waxaan ku arki doonaa sababta maaragtay dadna ay u kacaan dadna ay u kicin waayaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yihi idaa araada alcabdu alsalaata min alleyl, addoonku marka uu doono habeenkii waxa weeyaan maaragtay inuu tukado oo waxa weeyaan ou sara kaco ama habeenkii marka uu hurdo ayaa waxa u yimaadaa malag baa u yimaadaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ayuu ilaahay malag usoo dirayaa fayaquulu lah, malaggiibaa wuxuu odhanayaa qum ayuu odhanayaa faqad asbaxta, sara kac buu odhanayaa waagiibaa kuu baryaya, sara kaco ilaahay subxaanahu wa tacaala xus, sara kaco ilaahay weyne ayuu malagu waxa weyan odhanayaa. markaasuu qofkii sara kacayaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala 2 ragcadood oo qurux badan buu qofku maaragtay habeenkii ayuu saqda dhexe ilaahay dartii u tukanayaa. waxaa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi dabeedna shaydaan baa imanaya, shaydaankiibaa markuu yimaado ayaa wuxuu ku odhanayaa calayka leylun dawiil, habeen badan baa kuu hadhay, in badan baa kuu hadhay, iska hurud waqtiguma dhowe ayuu odhanayaa. markaa dadkii waxay noqonayaan qola waxa weeyaan malagahaas horay aqbaleen way sara kaceen, kii beynamaa kii kalena shaydaanka hadalkiisii ayuu maqlay oo wuxuu yihi hadhow baad kici doontaa oo waqtigii sidaa maaragtay walaalayaal uu ku dhaafay. waxaa loo baahan yahay inaan ka mid noqonno walaalayaal kuwa waxa weeyaan malaga markuu idhaha sara kaca ilaahay subxaanahu wa tacaala hinaga dhigo oo waxa weeyaan maaragtay waxa weeyaan ka faa'iideysta weeye. sidaa darteed markaas walaalayaal 2 ragcadood ee habeenka la tukanayaa faa'iido badan bay leeyihiin. jaabir ayaa waxaa laga wariyey wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka maqlay bu isagoo leh inna fi leyli saaca, waxa weeyaan habeenka saacad ayaa ku jirta laa yuwaafiquhaa rajul muslim oo auna ku beegaynin qof maratay muslima oo weliba yas'al allaha khayran min addunya waalaakhira, qofkaasoo weliba ilaahay weydiisanaya khayr adduunye iyo khayr aakhiro ilaa se hadduu jiro ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qof maaragtay saacaddaa ku beegaya oo ilaahay weydiisanaya khayr adduunyo iyo khayr aakhiro ilaa acdaahu allaahu iyaahu, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu doonayo ayuu siiyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa bishaaro markaa aada u weyn oo qofku hadduu saacaddaa ku beego ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayro ugu jiro adduunya aakhiraba ou markaas u helayo. weliba nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxa uu ku sii biiriyey wadhalika kulu leyla, habeen kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay maaragtay waxa weeyaan saacaddaasi way ku jirtaa oo saacaddaasi habeen walba markaa waxa weeyaan sidaa darteed markaa walaalayaal inaan sara kacno oo habeenka markay 8 saaca ku dhaafto oo 3 saac ay harsan tahay laga bilaabo 2 ilaa inta maaragtay laga aadaamayo inta udhaxaysa weeyaan. nebiguna calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxau ihi aqrabu maa yakuunu rabu min alcabdi, waqtiga uu ilaahay qofka u soo dhow yahay, waqtiga ilaahay qofka u soo dhow yahay uu addoonkiisa u soo dhow yahay fii jawfi leyl buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay addoonka u soo dhow yuu ugu dhow yahay
ayaa rasuulku wuxuu waa habeenka bartankiisa weeye, weliba joofi leyl alakhiir, habeenka qeybtiisa dambe oo thuluthu leyl alakhiiro waxa weeyaan 4 saacadood ee waxa weeyaan u dambeeya ayuu ilaahay subxaanahu watacaala addoonka ilaahay u soo dhowaadaa. sidaa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi fa in istadacta haddii aad karto ayuu ihi haddaad karto an takuuna miman yadkuru llaha fi tilka saaca, inaad ka mid noqoto dadka ilaahay subxaanahu watacaala xusaya ee markuu ilaahay u soo dhowaado sare kacaya, ee iyaguna ilaahay u dhowaanaya, ee maaragtay ilaahay isku taagaya, ee ilaahay hor joogsanaya, ee ilaahay u sujuudaya, ee ilaahay wax weydiisanaya. haddaad karta inaad ka mid noqoto kuwa fii tilka saaca, saacaddaa kacaya, fakun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad ka mid noqotaa buuhi dadka maxay waqtigaa kacay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteed walaalayaal, habeenkaa saacaddaa nebigu inoo tilmaamay ayaa waxaa ku jirta waa inaan saro kacno oon ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan aan weydiisano weeyaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la hadlaya ayaa maalin maalmaha ka mida rasuulku waxau ihi yaa ayuha nnaasu, isagoo la hadlaya wuxuu ku ihi dadki isagoo la hadlaya ayaa wuxuu ihi dadow afshu salaama waadcimu dacaama wasilu larxaama wasalluu alleyla wannaasu niyaam tadkhulu jannata bisalaam buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan buu nebigu yihi dadka wuxuu ku yihi afshu salaama, u fiirsado walaalayaal, salaanta faafiya oo ciddaad garanaysaan iyo ciddaydaan garanaynba salaanta waxa weeyaan faafiya. waa kow, waadcimu dacaama, dadka masaakiinta ee baahan een waxba haysanina, ee gaajoonayana, ee haraadanna, ee qaawana, kuwaana u gargaabu nebigu calayhi salaatu wasalaam. siiba gaar ahaan cuntada siiyo maaragtay waxa weeyaan dadkaa gaajoonaya caloosha u buuxiya. wasilu arxaam, waxaa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi qaraabada iyo tolkiina iyo dadkiinana xidhiidhiya. waxaa kaluu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi wasalluu alleyla, habeenkiina sara kaca oo habeenkiina salaad u kacoo tukada. wasallu leyl wannaasu niyaam buu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam. waqtiga dadku ay wada qafloo yihiin, ay hurdada ku jiraan, ay wada hurdaan, waqtigaasi idinku sara kaca oo waxa weeyaan tukada. maxaa dhacaya markaas walaalayaal? nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam tadkhulu ljannata bisalaam buu nebigu yihi jannada waxaad ku gelaysaan nabadgelyo ayaad ku gelaysaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. maa sha allah walaalayaal, maxaa ka fiican inagoo qofku jannada ilaahay aw biduuni xisaab nabadgelyo aw ku galo oo markuu dhintaba jannadii aw galo. intaa nebigu inoo soo sheegay, salaantoo la faafiyo, cuntadoo dadka la siiyo, qaraabadoo la xidhiidhiyo, habeenkii oo la tukado markay dadku hurdaan. intaas ninka laasima ee la yimaada jannada ilaahay ayuu gelayaa, nabadgelya ayuu ku gelayaa. markaas walaalayaal, sidaa darteed waxaan u baahannahay in aan sara kacno oon labadaa ragcadood habeenkii markaa walaal aan tukanno. salaada habeenkii la tukadaa ee salaatuleylka ledhaa waa salaadaha ugu fadli badan weeyaan. maalintiina waxa ugu fadli badan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa salaada duxada loo yaqaano, waa salaadaha sunnayaasha weeye, salaada leylka iyo salaada duxada. waxa xagga ilaahay subxaanahu watacaala loogu kala maaragtay dhow yahay waa qofka habeenkii sakda dhexe kacayo, oo salaadaas waxa ugu fadli badatay dadkii oo dhan baa qafloon, dadkii oo dhan baa hurdo ku jira. marka qofka isagoo habeenkii kelidii maaragtay dhulkoo madow sara kaca ee ilaahay dartii subxaanahu watacaala u sara kaca, dee taa aan soo sheegnay oo saacaddaasuu maaragtay waafaqaya. ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ka maaragtay helayaa ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf iyo waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo. salaada maaragtay waxa weeyaan duxaduna oo salaadaha sunnaha ka midina iyadna waxa ugu fadli badatay. salaadaasina waa waqtiga adduunyada la kala qaybsanayo ee dadku wax kala boobayaan, ee maaragtay waxa weyan ummadda oo dhani shaqo adduunya loo dareeray. markaa qofka waxaa la yidhi xasuusta ee waqtiga la mashquulsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala xasuusta oo 2 ragcadood oo markaa barqigiin tukada. 2 ragcadood ee barqinkuna waxay yihiin waxa weeyaan qofka sadaqada jirhkiisa lagu leeyahay oo dhan ayay maaragtay ka bixinayaan, sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay oo uu yihi qofku wuxuu ka kooban yahay 360 xubnood. 360 xubnood xubin walba wax uga baahan tahay sadaqad. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay 2 ragcadood ee barqinka uu rasuulku yihi ragcataani yarkacuhumaa, 2 ragcadood ood subaxa tukato
ayaa sadaqadii oo dhan kaa bixinaya maa sha allah. waa aroor kasta ayaa xubin walba waa 360 xubnood, 360 sadaqa aroor baa laga rabaa. waxaan u malaynayaa dad badan ayaa waxaa lagu leeyahay inayna weligoodba tukanin oo waxa weeyaan sadaqadaas oo dhan lagu leeyahay. laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay inaa lagu bixinayo oo ilaahay maartay subxaanahu wa tacaala labada ragcadood ay kaga filan yihiin. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.